warahmatullahi wabarakatuh kulanti wacan oo wanaagsan waa folo kale maalin kale qurux badan iyo waqtiga lagu jiro vacationka ama vakansiga waxaan soo gaaray gobolka dalxiiseedka Rimrish oo ku yaala Luxembourg ama dalka Luxembourg ku yaala waxa weey meesha gadaaliga muuqata waan ogahay in aad isweydiinaysan asxaab badan inay soo garan kaga soo diraan usbuucii u dambeysay meesha aan ku maqnaa dalxiis badan daal badan kadib waan soo laabtay ugu dambeynna waxa rajaynayaa inuu noqdo vlogani vlog aad ku baashasho maalintaada ku qaadato wax badan vlogyadeenii hore aad kaga sii barato adigana waxa rajaynayaa inaad wala cadayni koob shaah qurux badan aad soo qaadato caabitaanku waa dhankaaga daawo vlogga subscribe like share kanalka CC Rimrish baan joogaa Rimrish halkay ku taala waxaad ka arki doontaan khayraadada totalka soo galaysa ayaad arki doontaan okay isbuucii dib soo kala maqnayn asxaabta badankooga ila soo xiriireen Instagram ila soo xiriireen mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaan dib u soo laabtay mashquul badan kadib adigana waxaan ka rajaynayaa inaad wajigaaga gooto farahaaga aad fudayso okay let's go Rimrish baan aadi doonaa waa gobol dalxiiseed bad weyn ay ku taalo maraakiib badan ay ka baxaan wana meelaha ugu istiraatijisan wadanka dhexdiisa marka la taagan yahay adigana waxaan ku rajaynayaa vlogan quruxda badan aad ku raaxaysato maanta ku qaato let's go soo raax وهي وغلال بحيو بدلال okay wali waxa ku jirnaa dalxiis laakiin gobolkan maanta dalxiis gaar anagu nimidnay hadda gadaasheeda waxa ka soo muuqda maraakiibta u kala goosha kanalkan yar oo ku aragtaan meesha gadaal ee iga dambaysa laakiin waxa weey doomo yar yar iyo doomo dalxiisa badankana waxa fuula dadka ka soo dalxiisay gobolada kale ee webigan uu si dhex maro soo kale webigani wuxuu si dhex maraa wadamo kale oo ka mid yihiin Belgiumka iyo Jarmalka wadamadaas wadada webigan si dhex maro gobolka Rimrish ku yaala wadanka kale waxa loo yaqaanaa Swiss-ka yar maadaama uu centralka Europe ku dhex yaalo dalxiisayaashuna badanka xilliga samarka halkan isku yimaadaan xilligan haddana aan clipka duubayo waa xilliga vacationka lagu jiro fasaxida iskuulka ee semesterka yar intaan lagu soo laaban wada aragtaan Oreta Labora waa mid kamid ah doonyaha dalxiiska ee meesha ka shaqeeya waan isku taragaraynay laakiin booking baa la sii sameystay qofku intaan meesha iman ka hor waan ka xunnahay waxa rajaynaynaa marka dambe soo laabano inaan booking sameeyno aad intaan wada dalxiisno وغلال بحيو بدلال عدلان وهابيايو hadda waxaan tagayaa qaybtii hore waan ka yimiday dabcan waxaan taginaa qaybta gadaal inaga xigta oo halkaasa qaybtaasi waa qayb maraakiib restaurantiga waxaan sameynaa restaurantiga wax ka soo iibsano ama maqaaxida markaba ku dul taala inaan wax ka soo iibsano rajaynayna hadii la ogol yahay inkastoo talaalka 3G-ga lagu galayo ama dooska saddexaad lagu galayo maadaama vaccine-tu halkan ay ka tahay obligation ama obligatory ay ka tahay waxaynu tagi doonaa halkaasi kadibna waxaynu bixi doonaa background sare oo Rimrish ayaynu sidin doonaa flightkeena let's go markii kuway waashay بدلال وهابيايو markii kuway waashay waa meel kamid ah restaurantiyada wax laga cuno waxaan aragtaan dalabyada cuntooyinka sababtiisa fish shoppa iyo sushi wax laga cuno waxyaabaha gaata ama macaanka waxyaabaha kale vegetarianka waxana weey restaurant ku dul taala marka ku dul taala wuxuuna taagan yahay sabu jeedaanba webiga dhexdiisa ayuu taagan yahay waxani bad maahan waa webi waaye macnaha webi
balliciisu weyn yahay markaasi webigaas buu dhex taagan yahay waxaan rajaynaya dabcan maalin maalmaha kamid inaan soo buuggaraysano markaan dooska saddexaad vaccine soo dhammaystirno halkan labadeenuba aan ka wada cuntoyna adiga kamarada duubaya aniga iyo adiga daawanaya marka kala hadhayno horaan usii wadan doonaa qaybta maan tegi doonaa let's go hadmaynu iswehesho markii aan ku waay waashe hadmaynu iswehesho waheeyo aqlaanu baxayo cidlaan weehaya waxaan aadi lahayn restaurantyada maraakiibta dusheeda ee badda laakiin way xidhan yihiin badankooda lamana ogola xilliga vaccine-ta kadib waxaan nimidnay cafeteria ku yaala isla meesha dhexdeeda waxaan rajaynayaa adigana haddii aad caajistay vlogga dhexdeeda inaad dabcan oh my god saaid kafeega u qadhaadh waa markaad in badan socoto ee daasho magaalada ku wareerto ama like buuqa faraha badan eed rest u baahan tahay hal kafeeya madaxa ku furo vlogga dhexdiisa vloggan sii wadan doonaa adiguna anigaad ila socotaa vlogga ku xiga waxaan qorsheynaa inaan tagno Ettelbruck oo ah isaguna gobol kale oo Luxembourg ku yaala oo gobolada caasimada ugu soo dhawa saaid u qurux badan gobolada dalxiiska loogu salagalaya gobolkana waxaa la dhahaa Rimrich marka gobolkani waa gobol dalxiiseed waxaad ku arki doontaa maapka dhexdiisa waxaana ku yaala webiyada ugu waaweyn dalka Luxembourg baa ku yaala waxaad ku arki doontaan muuqaal drone oo dusha ayaad ku arki doontaan waxaan rajaynayaa adiga inaad vloggan ka hesho kelimadeenii horena dib ugu laabo si aan u qaadano كلمة قروح بدن أو فرق بدن عن مورال وهرنا إلى صوص منه واحد رجيني أنا سيشير كرسي فيسبوك سيشير كرسي مالك لوكسمبورغ واحد لقى هذا luqado fara badan hadda gobolkan ay miday luqada afdashka ayaa laga hadlaa ama luqada Germaniga iyo luqada Faransiiska iyo luqada Luxembourgishka intaas baa laga hadlaa marka goboladu kala qaybsan yihiin laakiin waxa general oo official language loo yaqaan luqada Luxembourgishka oo luqada national language-ka ee wadanku leeyahay marka laga yimaado luqada Luxembourgishkana luqada kale ee wadanka laga hadlo waa luqada Faransiiska iyo luqada af Germanka oo iyaduna boos saddexaad soo gasha luqada Ingiriiska sidoo kale waa laga hadlaa meelaha xafiisyada dawladda maadaama wadanku yahay wadan dalxiis haddii aad Luxembourg imanaysid oo dalxiis u imanaysid intaas oo luqado mid kamid ah inaad ku hadasho waa muhiim si aad meelo badan dalxiis u tagto waxaan ka codsanayaa haddii Luxembourg timaadana Rimrich inaad cagahaaga soo saarto adigoo faraxsan oo dhoola cadeynaya aniguna adiga ayaan vlog kugu soo lamaanayn doonaa rajinaysa okay vlogga sii wadan doonaa like to xagaaga let's go intaan waqmay weynaabe waniga wakinaye dabcan halkan aad u jeedaan waxa ka muuqda maraakiibta ay ku dhex yaalaan restaurantiyada ama meelaha wax laga cuno dhammaan restaurantiyadani waxa weeye xilliga samarka ama xilliga kulaylaha dad badan waxay u soo dalxiis tagaan meelahan dabcan inii muuqata waxayna waqtigooda badan ku qaataan dabcan in ay halkani waqti qurux badan iyaga iyo faamiliyada ku qaataan adigana waxaan rajaynayaa dabcan inaad timaado maalin qurux badan ku qaato maanta vlogga waxa igu lamaanaynayaa Mustafa oo isaguna behind the camera jooga oo kamarada qaybteeda dambe inoo jooga waxaan rajaynayaa in uu noqdo vloggani vlogyadayda kii ugu quruxda badnaa intaan vlog soo duubayay maadaama aan tagay gobol cusub dad badan waxay soo weydiinayaan Luxembourg ka baxo gobolada kale aado Rimrich gobolka ku xiga wuxuu noqon doonaa Ettelbruck usbuucan aadi doono xilliga ku jirno vacation-ka ama fasaxa adigana waxaan rajaynayaa inuu noqdo vloggani vlog aad kaga barato taariikh ahaan dalxiis ahaan maadaama gurigaaga fadhido koobkaaga shaaha soo qaado aniga iyo adiga maanta ma kala hadhayno oo mahadsan tahay let's go intaan wiiqmay weehanaabeen u baxday waraysigaade
luxembourg marka dhexdeeda la joogo dabcan waxa lagaga hadlaa luuqado fara badan hadda maraakiibtan aad arkaysaan waxaa lagu raacayaa luuqada Jarmalka luuqada Luxembourgishka luuqada Faransiiska iyo luuqada Portugiiska dhammaan wadanka luuqadahaas oo waa laga hadlaa isoo kale luuqada Ingiriiska haddii lagu salaamo luuqada Luxembourgishka wala mooyaan figidaad oo iska waran bay u macno dhigan tahay waxaad ku arki doontaa meelaha qaar welcome oo u dhiganta soo dhow meelaha qaarna waxaad ku arki doontaa bienvenue oo u dhiganta luuqada Faransiiska meelaha qaarna welcome luuqada Ingiriiska u dhiganta arki doontaa iyo luuqado kale dhammaan waxaan rajaynayaa luuqadaha badan ee wadanka lagaga hadlo inaad adiguna barato marka wadanka timaado oonad la yaabin haddii aad Luxembourg imanayso waxaad u baahan tahay inaad luuqada Faransiiska wax ka taqaano ama luuqada Ingiriiska because dad dalxiis tahay luuqada Ingiriiska markaas ay uga baxayso dunida aad okay waxaan soo gaaray shimbiro aad u qurux badan hadda shimbirahan arkaysaan lama ogolo in loo daadiyo waxyaabaha chibisko kale ama salaadada iyo waxyaabaha la midka looma ogola because waxa yaala reegal ama khiigal wax la dhaho oo mamnuuc ka dhigaya xeerasha wadanka in meelaha kale wax lagu daadiyo ma garanayo wadamada kale Yurub in qaar kood la mid yihiin laakiin marka gobolka Rimnish la joogo hologeena sii wadan doonaa waxa rajaynayaa maanta inaad luuqadahan wax badan ka baran doonto kaliya ma ahane allez nous allons la autre place allez avec moi nous allons الوقمة وهنابين وبعدي وريسي قابين وبعدي وريسي قابين هاد ما ينوس ويشدون وبعدي وريسي قابين هاد ما ينوس ويشدون Moin, Idad, Gute. حد شمبراء قرني اللغة أنا بنصح أخوي غبيان. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Viens, pour manger. Allez, bon app. Bon appétit, bon app. maanta halkan baan ku nasanay fologeena min bilow ilaa min dhamaad waxaan joognaa kaliya webigan naga dambeeya aragtaan qaybtaasi waa qayb dhirbeeris cusub laga wado qaybtuna qaybta webiga min bilow ilaa dhamaad fologani waxaan ku raaxaysanaynay webiga because webigu wuxuu leeyahay jawi saad u qurux badan xaafadan waa markii ugu horeysay aniga laftarkayga aan cagaha soo dhigo sida adigu u arkayso maanigana u arkayaa laakiin waxaan rajaynayaa Rimnish inaan marar badan ku soo laabano fologi kale oo qurux badan ka sameeyno isbuuca dhexdeeda waxaan aadi doonaa Bettenbrook iyo soo kale Ettelbrook labadaas magaalo isku magac ma ahan way kala duwan yihiin soo kale way kala muuqaal duwan yihiin waxaan rajaynayaa inaan tagnayna aan ka soo sameeyno folog aad u qurux badan oo kan ka sii xiiso badan fologa guntiga gunaanadkii ku dhow yahay wax yar kadib fologu sii dhamaan doona adigana waxaan ka rajaynayaa bal inaad fikirkaaga ku soo cabirto hoosta oo qoraal ku soo qorto let's go وهي واغلان بحنو عدلان kartaa 4 baaldi 5 baaldi 6 baaldi 7 baaldi laakiin ana ku cabiya adigina ma cabaysid la soco okay saacan ma dhaqaaqayo ka xumahay igu dhaqaaqayo okay saacan magac soo bixi anu magac waanu bixi laakiin inta ku haysanaya laakiin adigu hadda magac soo bixi saacan waxa la dhahaa cadde macnaha saxbigiisu wada cad laakiin sax dusha wax kula weligii ma arag baan maxaa waaye saca waa new style fashion wahay okay saacan magac loo soo bixiyo nafsigay wadaba waxyeeladaygu wacano wahey nafsigay wadaba waxyeeladaygu wacano waxyeeladaygu wacano warkayga caruur
caruurtu werise waxyeeladaygu wacalo waxaan soo galnay qaybtani oo ah qaybta webiga dushiisa kadibna waxaan kasoo gudubnay xayndaabkii hore inkastay qaybtani tahay mamnuuc oo interadi ay ku qoran tahay meelaha qaar laakiin meelahan qaar waa la ogol yahay laakiin meel kasta maaha horaan sii socon doonaa fologa halkan ku sii socon doonaa Rimrish waa saacadihii u dambeysay kasii tegi doono waxaan u laaban doonaa Luxembourgville fologeena waxaan kasii wadi doonaa Luxembourgville qaybta gunaanadka iyo gunta waxaan arki doontaa garoonka sare ee Rimrish dusha ka duubaysa iyo folog qurux badan waa guntii gunaanadka fologa lagu jiraa ha caajisin folog lamidtan ku kulmi doonana waan sii wada socon doonaa let's go warkayga caruurtu werise hadmaynu isweheshidona warkayga caruurtu werise hadmaynu isweheshidona wahey waqlaalu baxayo cadlaalu intii waxaan soo gabagabeynaynaa clipkeena iyo fologeena maanta waxaan rajaynayaa fologani inuu ahaa folog dabcan aad ka hesheen wax badan aad ka ogaateen gobolka Rimrish inuu yahay gobol dalxiiseed uuna ku yaalo koonfurta waqooyiga Luxembourg sidoo kale waxaan rajaynayaa inaad ku aragteen muuqaalaad ka hesheen dhammaantiina ku dhoola cadaysaan maalintiina iyo jawigiina aad ku samaysataan sidoo kale waxaan rajaynayaa inaad ku dhex maqasheen luuqado fara badan in waddanka lagaga hadlo waxa weeye dalxiisayaal fara badanna ay sanadkii waddankani u soo hooyo sidoo kale waxaan rajaynayaa in fologani noqdo folog muuqaal ahaan indhahaaga u wanaagsan daqiiqado kooban qaata adigana ku xiiso geliya haddii aad wax su'aal tabanayso Instagramkeena cusub ee sameeyay igala soo xidhiidh wixii su'aal aad soo weydiinaysana halka iga soo weydii clipkani dabcan intaan clip la mid ah ku kulmi doono waxaan ku rajaynayaa caafimaad cimri dherer iyo dhoola cadayn adiga dhoola cadee waan dhoola cadaynaya wada dhoola cadayna salaamu calaykum